dadka guryahooda sida wanaagga iyo nabadda ku jeefto ha ogeedeen waxa ka dambeeya rag oo u huray naftooda iyo maalkooda iyo dhiigooda u huray oo dartood waxa way dhacantaan ugu dhacayso nasiib bay u yeesheen anagu halkan waxa way aan cadow ugu hor taagan nabad ku seexda nabad ku anfura ana ay qabowaan idin jooga haddii gurigaaga aad nabad ku afurayso oo hooyada walaasha ama xaaskaada ay ku karinayaan markaas ayadoo lagu soo diyaariyay oo biyo qabow fridge lagaaga soo bixiyay aad markaas cabayso cunto lagu diyaariyayna markaas aad cunayso dhiiranayaashan sidan ay afurkooda markaas gacanta ugu wataan ilaa ay halka loo qorsheeyay oo markaas hore ah ayna gaarayaan waxaan qayb ka ahay oo aan la socdaa dhiiranayaashan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed afurkeena ayaan wadanaa dhiiranayaashan afurkooda ay soo diyaarsadeen gacmaha ay markaas ku wataan waxaynu gaari doonaa horay ilaa ay halka ay difaaca ka galayaan waxaan ku sugnaa furmaha hore ee dagaalka shacabka Soomaaliyeed caafimaad ku afura walaalihiina ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa way qabowgaan dartiin u jiifo hariya habeen waxa u joogna waxa way waa inay ayaga shacabka Soomaaliyeed ay nabad ku seexdaan waxaan leenahay guuleysta shacbiga Soomaaliyeed waxa leeyahay nabad igu anfura ana halkaan idin jooga qabowgaan dhaxanta dhacaysa ana diyaar u ah dalkayga iyo diinteeda shacbiga Soomaaliyeed inaan difaaco dhammaan inaa yani عدو كسوس عدو حنداب إنا ونقضه ونفي مال يقرب إنا لتاجناده أنا ديار إذا حوق دولة الصومالية إنا يتاجين إلى لين شعب إلى لين أمضة دينتي دلكي ذلك يجوا صومان أو رفاعسن أنت صاحبات أقول حكي راح يتاجين إن كل شيء إلى ليان ما أنت تطلع أو كوا أفري يقولي هذا لا أفري حاسس هذا ويوين كود ولا له إلهي ما هذا كسبوا أي كلا أفريان سبب وأنت بدن سنة ماذا كلا أفران سياسة سمعوا كتير Soomaaliyeed فورمها كتب كتشوجا فجنمتك يقيمها كتب عيان برنامج كودس مركا ما أنت تطلع سنة نبض أو كأفريان سبب سياسة كتب Soomaaliyeed كتشوجا ما نقولهم هذا علنا واجب أي مرة تاجين وحنا لنا نسيح وتشيو هذا هو خوارج أنا أنت يرين واحد إن شاء الله وأنا ما يستردونا رمضان كان عبادة صومك إياه الصلاة حدير نوع أمر والبينا تاجين حي جهاد أكبر جهاد النفس أنت بقى بدو عليه رفعان قبلنا هنا ومدنا kaga dulqaadno khawaarijtaas halkan maalmahan inta aan ku suganahay furmaha hore ee dagaalka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaynu idin soo gudbin doonaa sheekooyin xiiso leh oo ku saabsan dhiiranayaasha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si nabad ah ay halkan markaas ayagu ugu afurayaan si markaas sidaas oo kale hooyooyinka carruurta iyo aabayaasha Soomaaliyeed magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ay markaas sidaas oo kale si nabad ah ay ugu afuraan waa Sakariya Qaasim Bagax